waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada halkani waa Qarannimo TV. sida aad la wada socoteen waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafkii u dhaxeeyay dowladda Mareykanka iyo waqooyiga Kuuriya, halkaas oo laga cabsi qabo inuu ka dilaaco dagaal dhinaca nukliyeerka ah. Kuuriyada waqooyi ayaa samaysay tijaabadii lixaad ee dhinaca nukliyeerka ah, waxayna awood u leedahay sida ay khubaradu sheegayso in ay garaacdo guud ahaan turaabta dalka Mareykanka. madaxweyne Kim Jong Un ka dalka Kuuriyada waqooyi ayaa si weyn ugu hanjabay dowladda Mareykanka oo uu ku sheegay shaydaan dunida ku dul ka leedhinaya. si kastaba ha ahaatee, shacabkiisa oo si weyn gacantiisa ugu jiro oo uu gacan bir ah ku maamulo ayaa dabaaldeg qasab ah waxay ka sameeyeen magaalada caasimadda ee Pyongyang kadib tijaabadii nukliyeerka ee lagu guuleystay. khubarada dalka Mareykanka oo muddo toddobaad ah u fadhiday daraasaynta tijaabadan iyo qaybaha kale ee dhinaca sirdoonka ayaa dhammaantood isla qiray in ay tijaabadaas u ahayd mid lagu guuleystay, islamarkaana ay suuragal tahay in weerar dhinaca nukliyeerka lagu soo qaado dalka Mareykanka. khubarada ayaa waxay qiimeyn ku sameynaysay tirada dadka ee Mareykanka ee ku dhiman karta weerarkaas haddii uu dhaco, waxayna isla qireen in ay dadkaasu gaadhi karaan 500,000 ilaa 1 milyan oo qof inta u dhaxayso. dadka la xaqiijiyey in haddii weerarkaas uu dhaco la hubo inay dhimanayaan ayaa waxaa ka mid a dadka ku nool eeriyada magaalada Washington. gobolada qaarkood ayaa la sheegay in ay noloshoodu 50-50 tahay, halka qaar ka midana khatarta kasoo gaadhi karto aad ay u xadidan tahay sida la sheegay. madaxweynahan oo madaxweyne fara kulul ku haya dalkiisa, islamarkaana dilay ninkan aad shaashada ka aragtaan oo ahaa adeerkii, islamarkaana madfac nooca lidka diyaaradaha ku dhuftay, ayaa la sheegayaa in uu aad ugu hamuun qabo in uu ka rido jasiiradda Kuuriyada dagaal dhinaca nukliyeerka oo ku dhex maro isaga iyo awoodda Mareykanka ee gaas ka taliso. si kastaba ha ahaatee, waa khatartii ugu weyneyd ee adduunka soo wajahdo in wiil yar oo 35 jir ah uu gacanta ku dhigo awoodda intaa la-eg ee nukliyeerka ah. waxaa arrintaa kasii darayo nacaybka gaamuray ee u dhexeeya labada dhinac, taas oo ka dhigayso dagaal faraha lagaga gubtay inuu dhaco mid lagama maarmaana. fanaankan aad u jeedaan waa dalka Mareykanka ayuu u dhashay, wuxuuna muddo dheer booqan hayay Kuuriyada waqooyi, islamarkaana wuxuu saaxiib leeyahay madaxweynaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un. sidaad u jeedaana waxay wada cabayaan khamri, waxay ku sugan yihiin goob kilaaba, wuxuuna kula kaftamay in isagu uu ka badbaadi doono dhimashada kusoo foodle dalka Mareykanka. madaxweynahan da'da yar ayaa dhashay sanadii 1982, waana hogaamiyihii saddexaad ee dalka. awowgii iyo isaga ayaa gacan bir ah dalka ku hayo, halka aabihii oo u dhexeeyo 17 sano dalka soo maamulayay uu ahaa nin isaga ka dadabacsan. inkastoo ay wada dhammaantood dictaatoriyiin ay yihiin qoyskan dalka xukumo, haddana waxaad moodaa shacbiga dalka ku nool inuu yahay shacab duloobay, islamarkaana aan rajo laga qabin in wax iyagaa bedela uu kasoo dhexbaxo. madaxweyne Trump oo taleefan kula hadlayay madaxweynaha Shiinaha ayaa u sheegay in dowladda Mareykanka ay ka dhammaatay dulqaadkii, islamarkaana ay qasab tahay iyo lagama maarmaan in weerar lagu qaado Kuuriyada waqooyi. madaxweynaha Shiinaha ayaa dhinaciisa u sheegay in aanay munaasib ahayn in weerar la qaado, balse in wada hadal la galo aad loogu baahan yahay. dalka Shiinaha ayaa dalka Kuuriyada waqooyi wuxuu ka difaacaa